wasaaradda caafimaadka Soomaaliland muddooyinka ugu dambeysay wadii shaacinta cudurka COVID-19 dadyoga laga helayo sidoo kale kuwa u dhinta iyo kuwa ka bogsadaba saaka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ahayd magaalada sida tooska saaka looga shaacinayay dadyoga uu soo ritay cudurka COVID-19 mas'uulka inta badan wasaaradda u qaabilsan ku dhawaaqista cudurka COVID-19 xaaladaha ka soo kordha ayaa halkan oo magaalada Burco ka shaaciyay sheegina 48 saacadood u dambeeyay xaaladda cudurku waxa ay ahayd hadii aan ku bilaabo waxa weeye tirada dadka guud ahaan cudurka laga baaray waxa weeye 56 qof cudurka inta laga helayna waa 6 qof tirada cusub ee cudurka ka bogsatay waxa weeye 2 tirada dhimashada muddo inaka ilaa 7 cisho wax dhimasho abaynaan arag ilaa mahadi marka dhimashadu waa sidii hore 28 qof unba cudurka intuu jiray oo dhan u dhimatay waxa jira goobaha wadanka laga soo galo xuduudada dadka laga eegay xumadda screenka waxa la yiraahdo loogu sameeyay tiradooda guud ahaan waxa weeye 3523 lambarkan lala soo hadlay ee ah 988 waxa la soo hadashay 12401 qof ayaa la soo hadlay dadka cudurka laga helay 5 waxa weeye reer Soomaaliland qofna waa ajnabi 5 waa reer Hargeysa midna waa Berbera dadka da'doodu gabi ahaanba waa 40 ilaa 49 oo ah 4 qof iyo 80 ilaa 89 qof oo da'doodu qaday tahay oo ah 2 qof guud ahaan xaalkii cudurku maanta waa sida ilaahay mahadiya ka gaadhay waxaad moodaa tiradu inay intan dambe soo yaraanayso hase ahaatee tirada dadka laga eegay cudurka laga baadhayna ma badna taasina laba waji bay noqon kartaa oo wax weeye dad aad u xanuunsanaya u soo baahanaya in la baadho oo iyagu la soo hadlaya ayaa ama tiradoodaasi ay yaraatay ama waxa weeye alxamdulillah lama arkaba cid u baahata عبد الغرباء في التلفزيون كعالم قارتين مقلب برعو